كلن كان wuxuu yidhi dhiirigelin xooggan noo siiyay inaa yearly ama annual program inaan ka dhigno insha Allah adiga wax gaari karo adiga sameyn karo adiga dhici karo adiga guuleysan karo kini waa ku caawin karnaa wax baan ku sheegi karnaa waqtiga ugu fiican waa maanta hadii uu fadhiyo arday sanadka shanaad marayo oo maadada parasitology iyo cell medicine iyo cell study iyo cell biology iyo anatomy galab ugu soo gudbay walaalo waqtiga ma tagi still you have the time maskax ahaan haddaadan schedule lahayn ma hagaagsanaan kartid caawa inaad dhafatid waa waqti aad ka amaahatay beri waqtigan ka amaahato ugu shaqo badan aad ku qabsan lahayd dadka dhexdooda marka afka ku kala taagay caajis ku tahay boring dareemi maskax madaxa quraasta saarey waa sheekeenay qabka u dooranayno sidee dhakhtar u noqonaa sidee u guuleysanaa laakiin waxaa jiro dhaqaatiirta qaladaad ka dhacaan xanuun badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هالرئيسو وحا علايس كفلاً مركي والد كاغا إي معلم كاغا كور هاد ليسيد عذر دارم كبلاوة لقرا النقضو وحان آدو سلامة يا مهدعلين قارا مسينا يا مدحدا شرفت بضان إي معلمين تيدا وقوه الرئيو برسور قاري ومانت مرتدا أونا هاي هرمود كلية عافمات كجامعات ومد الصوماليات دكتورة سلول وأخ madaxdeena yani madaxweynaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna hormuud kuliyada caafimaadka jaamacadda Jazeera Dr. Abdullahi oo ah aabahay iyo macalinkeena ahna agaasinka isbitaalka Abu Bashiir maamulka kala duwan macalinkeyga saaxiibkay Dr. Awale deynka kuliyada caafimaadka jaamacadda Banaadir martida kala duwan taabagaliyaasha dhalinyarada sharafta badan oo isugu jiraan dhaqaatiirta ardayda iyo miidiyaha iyo maamulada kala duwan ee ka kala socdaan shirkadaha iyo mataqaana isbitaalada kala duwan dhamaantiin waxa idinku salaamayaa magac iyo mansab iyo maamuus qaabka sharafta aan uga soo qabgashan waa idinkaga mahadcelinayaa marka ugu horeyso intaas ka bacdi ballanteena maanta waxay ahayd inaan ka sheekeyno sidee caafimaadka loogu guuleystaa inta baranaysid ee markii aad baratid kadib oo dhakhtar noqotid sidee u noqon kartaa dhakhtar guuleystay tips and tricks khibrad dheer ma lihi laakiin wax yar oo aan ogahay oo ka shabiitooyin ah oo irdaha lagu furfuran kara rabaa inaan idin la wadaago hadduu ilaahay ilaahay marka ugu horeyso maxaa keenay barnaamijka inaan ka hadalno iyo urur laga yaabo marka ugu horeysa inaan maqashaan oo la yiraahdo Next Generation Medical Summit arwaa horta inaan idin sheego kadibna barnaamijka hore u galno Next Generation Medical Summit waa bilowgiisa ugu horeeyay wax qabadana maanta way macna laakiin waxa sharaf leh maalinka ugu horeysay wax qabadkiisa hoolka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Shariif Saalax inuu ma arkino meel laga fadhiistay tamam ma tintiin Next Generation marka waa bilowgeeda barnaamijka maxaa ugu talagalnay aniga sanado kooban ka hor 9 sanadood ka hor waa aragteen qalin jibintii waxaan ahaa arday kamid ah ardayda xamar wax ku barato la kulmo qaraxyada dhaawacyada dhibaatooyinka rafaad iyo dhibaatooyin fara badan ma arkeen oo ku soo maray waxbarashadooda ee gudaha tii anigoo og markii aan arkay qaas ahaan wali wadankan joognay digfara joogay kadib markaan baxay waxaa arkay ardayga qaahiro jaamacadda qaahiro ama jaamacadda Ayn Shams sanad koowaad ku jiro aragtidiisa way fog tahay wuxuu yaqaanaa wax la yiraahdo international exams wuxuu yaqaanaa takhasuskiisa u dooranayo departmentiga uu ka tirsan yahay ardaygaas waxaa joogo halkii department 10 professor joogto oo akademiyad ahaan kala sareeyo macnaha marka already uu og yahay wuxuu arkayaa styleka dhakhtarka gastroenterologist ah wuxuu arkayaa styleka dhakhtarka markino pediatriga wuxuu arkayaa styleka dhakhtarka markino oncologist ah ardaygan already jaamacadda environmentka asagoo dhex joogo naga way aragsan yahay macnaha anagana waxa laga yaabaa inay bachelor noo soo dhigeen inta badan kuliyadaheena waxa laga yaabaa duruufo adag oo facilities aad u kooban inaan wax ku soo qaadanay kusoo dhawow Abu Bashiir Hospital hormuudka isbitaalada ee dalkeena waxa uu qalbaysan yahay si heer sare ah
waxaad ka helaysaa dhammaan waaxaha kala duwan ee daboola baahiyahaaga caafimaad sida qaybta bukaan socodka oo ay diyaar kugu yihiin dhakhaatiir khubaro ah waxaad ka helaysaa waaxda qalimada guud iyo qalimada casriga ah ee leysarka qaybta haweenka qaybta afka iyo ilkaha raajo iyo farmasho casri ah uga soo hagaag xarunta weyn ee cisbitaalka suuqbacaad ka soo horjeedka dahabshiil ma ogeen jaamacadda markaa dhiganayni anuu sanadka labaad maraayo maxaa samayn karaa capabilitieskayga sanadka saddexaad markaan gaaro adduunka sidee wax ula qabsan karaa ma ogeen laakiin markaa waxaa arkay wacyi naga sareeyo taas marka waxay gelisay assignment adag oo aad uga fikiraya back home arday badanaa jiraan oo aanan wacyigaan haysanin marka yaa marka u maqan tii waa wax marka laga yaabo dhaqaatiir fara badan oo saaxiibaday ah way iga wacyi badan yihiin way iga ogaal badan yihiin laakiin waxa kaliya la isdheeraya waxa waaye qofna volunteerism kaas yarka ah wuxuu ku soo celiyaa ardayda intuu og yahay qofna waxa waaye tiisuu ka fikiraa intaas waaye waxyaabahan oo next generation aan rabnay inaan ka sameyno marka waxa waaye ardayda khaas ahaan kuwa aan ka weynnahay ama ka waaya aragsannahay inaan u sheegno oo keliya siday wax u qabsan karaan laakiin ma ahan wax oo organization wax gaar looga baahan yahay inta badan caafimaadka ka shaqeynaynaa waxaan ka shaqeynaynaa horumarinta skillska waxaana ka shaqeynaynaa insha Allah dhanka researchka biidnillah waa barnaamijkeena ugu horeeyay aan qabanay laakiin kulankan wuxuu diilo dhiirigelin xooggan noo siiyay inaan yearly ama annual program inaan ka dhigno insha Allah marka annual program ay noo noqon doontaa next generation medical summit biidnillah ta'ala waxaan ka bilaabaynaa marka sidee successful u noqon kartaa intii aan medical school ku jirtid barnaamijka maanta waxaa ugu talagalnay saddex qaybood ma garanayo qaybta saddexaad inaan ka gaari karno laakiin qaybtan koowaad waxaa waaye medical schoolka inta la joogo si brief ah inaan u dul marno qaybta labaad waxay ahayd sidee u dooran kartaa takhasus qaybta saddexaadna waxaa ugu talagalay inaan ka hadalno international medical exams anagoo si gaar xoog u saarayno UK USA iyo markino Canada macnaheedu maan inaan ardayda tahriibinayo bursoorada hagaraan noqdaan laakiin waxa waaye ardayga Soomaaliyeed marka uu ka yimaado baadiyaha uu xamar wax ku barto in loo sheego inuu leeyahay awood uu dhakhtar kaga noqon karo Mareykanka simply waxaana hubnaa ardayga baxo ay khibrad kala soo qaato back home waa lagu qasbay kulli wuu soo laabanaya dadka ka faa'iideysanaya okay maxaa marka slogan noo ah slogan-keena waxa waaye si guud next generation medical summit local and global excellence waxaan rabnaa local inaan successful noqono global inaan adduunka wax la qabsano successful noqono insha Allah taasaan marka ka shaqeynaa okay medical school waa journey aad u qalqalooco aadna u rafaad badan meeshuu ku dhamaanayna inta badan lama oga semester 1 waxaa joogaan libaaxyo haddii aadan ka gudbin ku cunayaan exams adag semester 2 meeshan way ka baxdayaan filayaa waxay u dhigan tahay 12 semester ee medicine lagu barto ilaa iridka aad ka qaadanaysid ugu dambeyn waxaa ahayd arday ma arkin oo jahwareersan oo iridan taagan ugu dambeyntiin stethoscope-ka dhagaha gashanaya horta medical school waa saas waa semester 1 ilaa semester 2 alif haddii aad halkaas gaartid aad stethoscope-ka la wareegi kartaa oo lagu dhihi karaa magacaaga maxaa ka hormaraya markaas doctor okay marka sida ugu kooban si aan u sheegno ardayga caafimaadka si uu u guuleysto intuu kuleeyada dhiganayo saddex shay inuu iska dhisa waayo inuu mentally macna maskax ahaan inuu prepared yahay nafsad ahaan inuu diyaarsan yahay iyo macna nafsad ahaan iyo diin ahaan iyo ugu dambeyn ma arkin oo jir ahaan inuu diyaarsan yahay adoo caafimaad qabtid inaa meeshan ka baxda muhiim in badan oo ardayda kamid ah waxa ku yimaado adeega iyo dhibaatada ay leedahay medicine aawadeeda mental illness ku dhacaan marka sidee wada gaari karnaa saddexdaas markuu ugu horeyso waxa u baahanahay maskax ahaan inaa ma arkin oo prepared ahaatid marka si maskax ahaan aad prepared ahaatid waxa u baahan tahay your learning style horta inaa yeelatid waaye meesha lagu bartana dugsiga sare ma ahan dugsiga dhexena ma aha ee waxaa lagu bartaa jaamacadda learning style-ka oo Caaisha iyo learning style-ka Cali way kala duwan yihiin marka adiga learning style-kaaga inaad fahamtid waaye sidee wax u baranaysaa xagee wax ku baranaysaa waqtigee wax baranaysaa sidee wax u akhrinaysaa time-kee wax akhrinaysaa learning style-na yeelatid waaye waxyaabahan oo dhan oo points-ka ka soo qaatay iyagoo detailed ah YouTube-kayga yaalin muddo 8 sano ah ardayga soo wax u baran karaa ardayga soo u guuleysan karaa soo imtixaan u gali karaa see wax loo akhriyaa waa ku soo daalinaa inaan ka hadlo dhammaan linkiska waa idin reebaya learning style-kaaga markii aad fahamtid waxaan ka hadlaynaa next maxaa ah
self assessment adiga ina isku sameeyay self assessment adiga isku sameeyay macnaheedu maahan in qof kale ku qiimeeyo maahan adiga ina isqiimeysid oo aad isku qiimeysid maxaa ku hagaagsan maxaa ka qaldan cid kaaga aqoon badan nafsadaada ma jirto macallin aan wax ku sheegi karin waalid aan wax ku sheegi karin saaxiib aan wax ku sheegi karin adiga isqiimeey marka isqiimeynaysidna pros and cons isweydii maxaa negative kaaga yahay maxaa positive kaaga yahay waqtiga ma ku xuntahay akhriska ma ku liidataa fahamka ma kugu yar dadka ma dhex gashid miya oo markino al cilmi bayna talaamiid Allah ma kala faa'iideystid miya negative kaaga isku sheeg adiga si gaar ah kadibna positive kaaga isku sheeg markii aad adiga isku sheegtid negative kaaga iyo waxa ku wanaagsan tahay kadib waxa hagaajin kartaa meelaha aad ku xuntahay laakiin haddii aadan is xisaabinin ka waran waxa ma sameyn kartid goals maxaa ku yaal marka adiga medicine horta maxaa soo gashay waalidkaaga ma kugu qasbay mise jacaylkaaga ku imaaday haddii jacaylkaaga ku imaado aniga adoo shaqayn karnaa waa wada guuleysan karnaa laakiin haddii waalidku kugu soo qasbay mar kale fikir waalidkii inaan kala hadalnaa diyaarunaa haddii marka aad adiga soo dooratay gooliskaaga marka way cad yihiin qof rabo inuu dhakhtar noqdo tahay marka aad noqotid qof rabo inuu dhakhtar noqdana jidku waa lagu markino tilmaami karaa si fudud okay noloshaada schedule ma leedahay mise way isku yaacsan tahay review inaad isku samaysid muhiim waa adiga maskax ahaan haddaadan schedule lahayn ma hagaagsanaan kartid schedule marka waxaa laga wadaa schedule jaamacadda u gaar ah oo maalinta sabtida xisooyinkaas aad leedahay khamiisna xisooyinkaas aad leedahay iyo schedule adiga nafsad ahaantaada xilliga waxa qodnay xilliga jiifana xilliga abooto soo salaamay xilliga markino shukaansi sameynay marka ina adiga ku kala qorsheysan tahay waa muhiim okay styliska wax ku akhrisid mar walba waxaan ardayda u sheegaa Pomodoro technique yaa weligiis maqlin Pomodoro style yaana weligiis maqlin yaa weligiis maqlay marka Pomodoro dadka macnaha isku mid maahan sanadihii hore sanadka aad update loo yahay ma sha Allah Pomodoro waxay ku caawinaysaa waxa la yiraahdaa qaabka ugu fiican ee waqtiga lagu sameeyo waa 25 daqiiqo wax aqri 5 daqiiqo wax markino naso way loo qaatay taas waxa loo qaatay 25 daqiiqo waxa la yahay qofka ugu focus liito adduunka 25 daqiiqo diirad meel gaar ah uu saari karaa saas awgeed hadii 25 daqiiqo aad ka focus yeelatid ka waran medicine buu talagalay marka 25 daqiiqo ka hormari hadii aad markino aad ka sii hormarin kartid 50 daqiiqo ani marka ardayga caafimaadka ahaa 50 daqiiqo wax akhrin jiray 10 daqiiqo nasan jiray 50 daqiiqo akhrin jiray 10 daqiiqo nasan jiray markii dambe waxa gaaray 2 saacadood xiriir in akhriyo oo 20 daqiiqo nasto just wuxuu u baahan tahay training in aad isku tababartid okay waxa muhiim ku waxa kamid ah sidee u review garaysaa casharadaada mentally inaad diyaar u ahaatid waaye casharada intay cusub yihiin in la akhriyaa fiican haddii ay waqti dheer ka soo wareegatana way adkaanaysaa marka si guud muxuu ahaa sidee marka maskaxdaada meeshaan waxaa ka maqan islaamic inaad salaadaha ku dadaashid tan ugu muhiimsan waaye qofka muslimka ah waxa ugu fiican oo waqtigiisa ku ilaalin karo waxa waaye Allah 5 salaadood 5 salaadood ay ku hagaagto already active ah tahay ogaada exercise ugu fiican oo qof sameeyo waa salaada sujuud marka tahay blood flow ugu badan maskaxda soo aadaya salaada ka bacdi xilli ay maskaxdaada ka active santahay marka ma jiraan saas daraadeeda sameeyso hobbies gaar ah haddii aad tahay qof karinta jecel qof wax akhriska jecel qof qoraalka jecel qof sportska jecel si maskax ahaan aad u bad qabtid ma ahan mar walba inaad wax akhrisid hobbies ka baxsan inaad leedahay waa laga maarmaan medicine in la galo kaamir reebayso inaad wax qabsatid inaad arrimaha bulshada ka qayb qaadatid ma kaa reebayso marka hobbies gaar idan aad ay muhiim u tahay mar walbana adiga inaad ahaatid maskax ahaan iyo jir ahaan qof active ah qodobka xigo waxaan rabnaa inaan kaga hadalno jirkaaga ma arkin oo nafaqay jir ahaan diyaar garow maskaxdaadii waxa ugu muhiimsan time-kaagii socialism-kaagii waxaasna waa ka faa'iideysan say jirka u diyaarinaynaa marka jirka waxaa ku diyaarinaynaa waxa la yidhaahdo triangle of health waxaan ku diyaarinaynaa triangle of health saddex geesoodka caafimaadka intaa hadda tahay arday caafimaad barto oo aanan mas'uuliyad dhakhtarnimo ku fuulin saddexdan adiga ku dadaal kadibna bulshada aad u caafimaad qaba wax u qaban kartaa triangle of health marka maxaa waaye saddex geesoodka caafimaadka waa number 1 cuntada waaye cuntada iska hagaaji number 2 jimicsi sameey number 3 na markino hurdaha laga helo zamanka ugu xumaayo hurdo la'aanta jirta adduunka la soo maro hadda joognaa sababtuna waxaa social media cuntada iska hagaaji waxaa laga yaabaa ardayga kulliyadda caafimaadka markuu dhiganayo nolol ahaan inuu faqiir yahay aysan ma arkin oo u hagaagsaneyn inuu cunno legacy ah
oo waaweynka ay noocno okay laakiin waxaa jiro nafaqada fuqarada jirto macnaha digirtii ay joogto ukuntii ay joogto ma arkino cambuula galeydii alaabo badan waxaa jira muhiim macnaha qudaarta inteeda badan waa la heli karaa cabitaan jirkaaga inuu si fiican u helo waayo jir oo hydrated ah ayaa maskax nadiif ma arkino yeelan karo qodobka labaad weliga ha yareysanin exercise meesha maxaa ku qoran hooyada waxay ku soo siisay ma arkino ku dhaqaaq maqaaji maalin jaacada la dhigi jiray doctor Xasan Kaakuma wuxuu dhigi jiray ATB saakil lagu soo guray meelaha shaaxa la fariisin ATB dan hadaan sheelno hooyada qasaara ku soo dhigi jiray marka wixii oo energy ah shay jirkaaga soo galay waxa u baahan tahay inaad markino qaybna wax ku baratid qaybna ku almeetis iyo ugu dambeyntii hurdada markay ugu yartahay 6 saacadood in laga helo oo hurdo ah maskaxdaada ay u wanaagsan tahay qof aan hurdo fiican helin focus ma yeelan karo madax xanuun ma ka haraayo isla markaasna yani wax ma baran karo macna si guud marka jir ahaan intaan ku soo koobayaa cunno caafimaad leh jimicsi iyo mataqaana hurdo caafimaad leh saddexdaas inta ardayga tahay ku dadaal kadib dadka u sheegi kartaa hadhow macna hadii adiga ka halaysan tahay cid ka dhageysanaysa maaha okay maxaa marka noo xiga waa ka triangle of health diet move and off cun dhaqaaq seexo saddex ugu muhiimsan waa taa waxaan noo xigo nafaqada noocyadeeda iyo in badan ma ka hadlayno laakiin waxaa u baahan tahay inaad nidaamisid macnaha plan inaad u samaysid haddii kaliya aad nooshahay bulking samee hal mar ma arkino cunno badan karso oo 3 maalin aad kaga gudubtid 4 maalin aad kaga gudubtid hadda Soomaaliya modern ay noqotay guri walba filinjeera yaalo cuntada keedso aad kaliya degan tahay kululeyso cun beri dambe cun saadan cun si waqtiga ma arkino iyo jooris waxa dhan hamla samayso mar walbana ku dadaal inaad real food cuntid qodobkan aad u muhiim u yahay waa rabin inaan idin sheego real food maahan cunnada baakadaysan maahan cunnada gasaacadaysan maahan real food waa cunnada aad ogtahay meesha laga keenay cunnada aad ogtahay geedka laga soo jaray meeshay ka timid haddii lagu weydiiyo gobolkaas laga keenay ama baadiyaas laga keenay dhihi kartid that is the real food laakiin cunnooyinka oo supermarket-ka yaalo oo modern time-ka ma arkin oo la cunaayo healthy food maaha marka inta dhalinyar tahay oo machine-kaaga active ka yahay oo dhalinyar aad tahay jir ahaan mar walba ku dadaal inaad real food cuntid cidaadana iyo ehelkaaga adaa ambassador u ah oo caafimaadka u qabilsanay u sheeg macnaha in real food gurigaaga laga cuno okay waxaan noo xigo mar walba tilaabooyinka yaryarka ah waxay ka saari karaan buuro inaad ka gudubtid marka ha yareysanin mobilada smartphone-ka awadana uga faa'iideysano pedometers aan ku xisaabinayno tilaabaheena ugu yaraan 10,000 oo step maalinka hadii laga heli karo waxa ugu yar waayo ilaahuma jaamacada u lugeysid oo ka soo lugeysid wax uun dhaqaaq sameey okay marka waxaan noo xigo hurdada mar walba waa sheegnay waxay yiraahdaan qaacidadan waa aad muhiim u tahay staying up late tonight is borrowing time from tomorrow caawa inaad dhafartid waa waqti aad ka amaahatay beri waqtigan ka amaahato ogow shaqo badan aad ku qabsan lahayd dadka dhexdooda marka afka ku kala taagay caajis ku tahay boring dareemi maskax madaxa kuraasta saare marka hurdada habeenkii aad deynaysid maalinkii ay ka jaran tahay marka mar walba ku dadaal si markino hurdo ahaan jirkaaga oo u nasto waxaa muhiim ah oo qodobka uu noogu xiga ah nafsad ahaan mar walba global excellence waa muhiim inaan markino raadino adaa u baahan tahay marka self aware inaad tahay aware kan sidee laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa inaa ma arkino wax ka ogtahay inaa wax ka ogtahay environment-ka aad ku nooshahay suu yaallaa siyaasadaha socdo xaggee wax u socdaan jaamacadda aad dhigatid iyo ma arkino nidaamyadeeda inaa ma arkino diin ahaan maxaa xalaal ah maxaa xaaraan ah inaa wax ka ogtahay waxbarashadaada xaggee wax ku socdaan inaa aware u tahay self awareness-ka mar walba waxay ahmiyad weyn u leedahay guushaada macnaha waxayna ku diyaarinaysaa nafsad ahaan sidee wax kugu socdaan maanta adiga ilaahay u dhawaanshahaaga siduu u yaallaa inaad isxisaabisid ugu yaraan dhinac walba noloshaada ma arkino inay aware ah ka ahaatid barboskaagana aad ogtahay iyo ugu dambeyn community qodobkan waa muhiim nafsad ahaan waxyaabaha ku hagaajin kara waxaa ka mid ah saaxiibada kugu hareeraysan iyagaa kula degi karaan oo nolosha kaa saari karaan iyagaana horumar ku gaarsiin karaan oo waxqabsi iyo horsocod ku samayn karaan haddii saaxiibkaaga uu wanaagsan yahay inaad noloshaan wanaagsanaan doontid guula gaari doontid u badan tahay haddii saaxiibkaaga uu xun yahayna يعني إفعال في عمان ساس أو ذي ذا network فكر ولقى your network is your net worth
lacag inaad samaysaan iska ilow laakiin dad inaad samaysaan ku dadaala dad inaad samaysid maxaa ula jeedaa bulshada aad ku dhex nooshahay nooc walba inaad wax ka taqaanid fundi inaad taqaanid macallin inaad taqaanid tuug inaad taqaanid askari inaad taqaanid engineer inaad taqaanid community-gaaga waa ku dhex noolaanaya maalinta lagu baahdana in lagu heli karo it's very important inta ardayga tahay is bar volunteerism maalinta lagu baahdo inaad bulshada laga dhex heli karo qof waqtigiisa dadka wax ka siiyo haddii dhimasho dhacdo dadka caawiyo isbitaal haddii loo baahdo dadka caawiyo xoog furan mar walba inta ardayda tihiin oo waxaan ka wadaa dad badan oo ardayda ku fadhiyaan waxyaabaha caawiyey waxaa ka mid ahaa intaa jaamacadda dhiganayay weligay leader ahaa macnaha kaabgalaasa ahaan jiray sanadii ugu dambeeyay gudoomiyaha ardayda jaamacadda ahaa taas marka waxaan ku bartay maamulka jaamacadda siyaasiyiin saaxiibo kale oo jaamacadaha kale ardaydu hogaamiyaan oo qaarkood maanta ay dowladda xilal sare ka hayaan there is a network dad baranay macnaha community marka waa ku dhismaa adigoo tartiib dadka xiriirinayo wanaag kula dhaqmaayo waxa arkay meertadaada way badanay dad wanaagsan maanta waxa kugu soo dhacay immigration wax la xiriiro already you have friends immigration ka tahay ka taqana waxa kugu soo dhacay istal digfer saaxiib baa ku leedahay waxa kugu soo dhacay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saaxiib baa ku leedahay waxa kugu soo dhacay waa ila fahanteen Soomaan mar walba marka adiga wanaagsanaaw wanaagaagana dadku ku celi mar walbana qofkii aad aragtid wanaag baro building communities aad muhiim u tahay inta ardayga tawlada way ku diyaarinayaan waxyaalaha ugu dambeeyo aan ka hadlayno waxa waaye adiga tartan noloshaada oo la jirtaa macnaha cid kale oo aad la tartamaysid ma jirto iska ilow ha isku dhereerinin hana isku barbar dhigin qof kale adiga una haw adiga wax gaari karo adiga samayn karo adiga dhici karo adiga guuleysan karo kali waa ku caawin karnaa wax baan ku sheegi karnaa maqal yes ha maqlin adiga waay adiga kugu xiran tahay marka tartanka noloshaada adiga gaar ah ku ahaado sida ugu wanaagsan oo tartan adiga shalay iyo adiga maanta isla tartan haddii adiga shalay uu ka sareeyo adiga maanta dib u dhaca ku jirta adiga maanta laakiin hadduu ka wanaagsan yahay adiga shalay guula ku socotaa marka meeshaan waxay ku leedahay run your race well one step at a time mideeda kale ogow wax waqti la yiraahdo oo ka tagay ma jiraan waqtiga ugu fiican waa maanta haddii uu fadhiyo arday sanadka shanaad marayo oo maadada parasitology iyo cell medicine iyo cell study iyo cell biology iyo anatomy galab ugu soo gudbay walaalow ama walaalay waqtiga ma tagin still you have the time ardayda waxyaabaha niyadjabka ku rida oo marar badan fariimaha gaarka soo gaar xukuumadda doctor sanadka lixaad amara ama sanadka shanaad amara jaamacadda sanadihii kuwaad waxa ahaa arday galab maadooyinkaas ma soo baran hadda waa fahmay waxaan rabaa inaan niyadda kugu geliyo kuu sheego waqti kaa tagay ma lahan maadaama arday nahay jaamacadda markii aan ka baxay oo dhammeynay macallin sheegay annaga duruufaha Soomaaliya isla joognaa xisooyinka qaar waxaa kuu soo dhigay macallin asaga oo macallimadiisa san wanaagsaneen si fiican uma soo baran waxaa kuu soo dhigay maadooyinka qaar curriculumka jaamacadda ma ku jiraan laakiin international curriculumka way ku jiraan duruufahan heystay kamid ah ogaada maxaa sameynay marka sheekadan mar walba u sheegay dhalinyarada anagoo team ah waxaa go'aan ku gaarnay imtixaanada caalamiga iyo USMLE inaan diyaarino markaas Kaplan waa wada garanaysaan in badan idin kamid ah Kaplan books oo dhan from A to Z dhameynay buugga first aid USMLE la yiraahdo kulli dhameynay oo ku celinay waxay noo noqotay isdhisid mar labaad ay isdhisin oo aad markii u facweyn marka hadafkayga waxa waaye waqti kaama tagin hadda wixii aad joogtid see tahay uga dhaxbax ku dadaal waxa kuu soo socdana ilaahay u daa laakiin adiga dadaalka kaasho okay insha Allah qaybtan waxa uga hadli doonaa si guud medicine-ka dabcan ardayda dhan way fahamsan yihiin semester 1 ilaa semester ugu dambeeya ama internship wax la qaato qaybtan marka waxa inaan uga hadalno si brief ah takhasusaadka iyadoo category ah sidee loo kala doortaa iyo markino maxay ku xiran tahay qofka inuu takhasus qaato ardayda markay heerkan soo gaaraan marka waxa hor yaalo career waxaan hor yaalo doorashooyin qofka intuusan medicine gelin la talinuu rabaa cid kala taliso doorashadiisa markuu soo galo uu dhameeyo kadibna la talinuu rabaa cid kala talisuu rabaa okay maskaxdooda fiirinayna marka teamkan markay dhaqaatiir noqdaan oo anigana ku jiray maskaxdooda
waxyaabo kala duwan oo ku sawiran qofkan horta wuxuu mudan in loo hambaliyeeyo maxaa yeelay geed weyn oo jidka ku go'naa uu dhex qotay uu isxalliyay dhakhtar uu noqday jidkii aa u sawiran markii nolol qurux badan ay jidkan geyn doonto aa u sawiran gaarigiisu wataa dhakhtar uu noqday geedkiina maarkin oo caqabadii koowaad uu ka gudbay marka maskaxdiisa waxbaa ka guuxaya macnaha waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay bini aadamka biyaha waa jecel yahay iyo webiyada nolol wada nalal ah gaari Mercedes Benz ah iftiin xeebaha biyaha luxurious life qaar badan oo naga mid markii medicine dhigan maxay dhihi jireen wallahi aniyo hal mar ilaahay kuliyada aan igana meeyo wallahi dhakhtar noqdaa oo dhakhtar hebel lacagtu sameeyay markino dhakhtar hebel markino lacagtu sameeyay waxaa ku sawiran inaa kubrigaas markino ama bridge-kaas abaash ku karinaysa macnaha qaar waxaa laga yaabaa asagii family-giisa yarka inay xeebta badda dhexdeeda inay degayaan inay u soo dhintaa laga yaabaa maahane Maldives laga yaabaa inay u sawiran tahay maalinkuu dhakhtar noqdo inuu ma aragtaa meeshaas isbuuc walba dhammaadkiisa ayay doonaan maahane qaara skyscrapers ka sawirteen dabaqada meesha ugu sarreyso inay caadka agtiisa markino nolol oo luxurious life ah ay ku qaadanayaan aan u sawiran maxaa xaqiiqa marka maxaa xaqiiqa okay waxaas waa sawir shaqayaal ah ee meeshan waxaa yaalo waxa la yiraahdo future plan iyo training haddii kuwa tababar laga rabaa hoosh ma dhamaanin macnaha yes magacaaga waxaa laga hormariyaa doctor heblayo doctor hebel laakiin weli waxaa ku yaalo training opportunities ka fikirey xagee master u aaday xagee ka soo diyaarinay residence maxaa bala gareeya imtixaankee aadaa haddii kuwa jidka ugu furmay marka waxaa u baahan tahay la talin okay medicine ma loo galo not by name or not by fame magac iyo sumcad iyo sharaf adduun iyo hanti laga tegaayo iyo in loo galo macnaha in laga sameeyo ma loo galo macnaha medicine waxaa waaye just serving macnaha in dadka lagu caawiyo taas horta inay si fahmno waayo dadka lagu caawiya hay ما هم glamour يعني ضلال كان تاسنا وقتهم دكاتره بدن Soomaaliyeed tusaale hadda arkitiin mugti inta suusan oo dhaqtariye hay ma arkino skyscrapers oo dabaqada dheer iyo gawaari oo luxurious ma wataan laakiin way noolyihiin shaarcaday wataan ummadda sumcaday ku dhex leeyihiin guri yar oo ay degan yihiin reer cuntadiisa ay bixin karaan way haystaan nolosha medicine saas marka sharafa lagu helaa iyo sumcad ee ma ahan yani fikradda dhehayso lacagan ka sameynaa haddii aad rabtid inaad lacag samaysid another business ka fikir business kale investment ku sameeya wax kale ka fikir laakiin medicine ma okay hal arrin ay jirto marka waxaa jirto what is trainingka sidiisa waa macno marka laga hadlayo definition ahaantiis waa balaaran training badanaa waxaa magacan waxaa isticmaalay UK waxay yiraahdaan doctor of trainee trainee doctor dhakhtar training ku jiro laakiin Mareykanka marka la joogo waxay dhahaan resident kala fahma terminology-gaas systemka Britishka trainee ee dhahaan qofku muxuu ku dhex jiraa training system ayuu ku dhex jiraa laakiin marka Mareykanka la joogo residency program ku jira magaciisa maxaa la resident doctor okay training ko isla fahnay waxa waaye waa tababar ama dibow qofka la siinaayo si loo gaarsiiyo heer muayyan ee nololeed ama si loo siiyo khibrado gaar ah oo ah hand skills waxyaabo noocaas noqon kara marka hadafka maxaa waaye haddii aad tahay dhakhtar surgical field ah ama dhakhtar medical field ah in maskax ahaan iyo faham ahaan lagu dhiso sidee waxaan loo qaabeeyaa sidee loo maareeyaa ama sidee loo qabtaa sidee loo qalaa in lagu baro waa hadafka trainingka marka badana marka postgraduate la joogo trainingka noocyadiisa waxa kamid ah institutionalized inuu yahay sida systemkan digfar oo kale oo residence program la galaayo institution aad ku biiraysid institutionkaas oo 5 sanadood ama 4 sanadood ama waxay ahaataba markan ka dhex bixaysa ama inuu yahay required oo structured systemka masterka badana loo yaqaan structured ina master jaamacadeed aadid masterkaasna aad ka qaadatid hadhow magacaaga uu noqdo master of kida
مثلا MSc Master of Science kadibna PhD aad qaadatid oo ma arkin magacaaga oo philosophy doctor oo noqdo training marka laga hadlayo dadka qaar iyaga ay tababaraan dadka fursad aanan helin dhaqaatiir badan oo waxa jira aan fursad helin mugta oo aanan masterna aadin residency aadin badana self training ay sameeyaan koorsooyin gaagaaban ay baxaan iyaga isdiraan lacagtooda baxsadaan dhaqaale ahaan ama fursad ahaan way heli waayeen master ama residency heli waayeen iyaga bartay marka self training Allah maana qof asaga isdiray oo asaga wax baranayo barbus barana marka oo qof uu train gareenay maxaa jaamacada dhameystay way train nawaaday job horta in asla fahanno way qof walba muxuu rabaa shaqo inuu ku helo wax gaar ah maanta maxaa waay inay dhakhtar urologist ah takhasuskaas gaarka waxa la inaa shaqo ku helo shaqadaas marka ha ahaato national job ama international job ha ahaato dalka gudihiisa maan ka rabaa banaanka maan ka rabaa sababta loo train gareenay dhan waa sababtaas macnaha okay qofka marka training nooc uu qaadanayo waxay ku xiran tahay job nooc raba macnaha dependent job ma rabtaa mise independent job maxaa laga wadaa dadka qaar takhasusaadka ay qaadanayaan qof kaligiis waxa uu sameyn kara maaha takhasusaadka marka inuu daqiiqa ah neurosurgery oo kale cardiothoracic surgery transplant inaan noqoto oo kale kaligaa waxa sameyn karta maaha wax team ku xiran waayo mar walba dependent ahaanay institution hay'ad dawlad waxa la shaqeynaya marka aad dooranayso waa inaad ka fikirtaa adiga ma waxa rabtaa dhakhtar si xor inuu u shaqeysto rabo ma tahay like dermatologist clinic furanayo mise waxa qaadanayso sophisticated specialty takhasus adag oo ku xiran mar walba team work okay postgraduate selection marka maxay ku xiran tahay qofka inuu takhasus doorto saddex shay ku xiran tahay medicine saddexdaas ku kooban yahay maxaa la yiraahdaa basic paraclinical iyo clinical dhaqaatiirta qaar basic science aadaan waxa laga yaabaa molecular biology especially genetics inuu dhakhtar aado waa caadi basic science kama taag dhakhtar wuxuu aadayaa Allahu musta'an cell biology qofka wuxuu aadayaa biostatistics qofka wuxuu aadayaa epidemiology qofka wuxuu aadayaa yani waxyaabo waxa jira oo basic ah oo loo baahan yahay hadhowna ay tahay inay dhigaan waxa kamid ah anatomy qof aadayaa qofka physiology aadayaa paraclinical maxaa kamid ah paraclinical waxa kamid ah luxury clinical ka horeeya pathology waxa kamid ah pharmacology waxa kamid ah yani waxyaabahaas fahmaysa qofka wuxuu u baadooyaa paraclinical gaarna uu shaqeyn karaa hadhowna markino system institution waxa uu shaqeyn karaa clinical waa isla fahamsanahay dhamaantan midka aadka aan u naqaano wada xiiseynayno clinical ka way ina four majors ka noqono selection ka marka uu namaan marka sidee u dooranay doorashadan waa asaasi waana muhiim saddexdan shay aan lagu saleeyaa ra fa iqaaf rifqun abadana loo soo gaabiyaa waa raqba fursa iyo qudra maxay kala yihiin is it your passion waxaan ma jeceshaa adiga takhasus horta inaad jecel iska dhex aragtid waa laga maarmaan ileen waxaan haddii hadda aad qaadatid 90 jirkaaga oo ku shaqeyn doontaa 80 jirkaaga oo ku shaqeyn doontaa number 2 maxaa opportunity ka jira magaalada aad joogtid takhasuska ma looga baahan yahay ma banaayin at the same time markii aad ku soo takhasustid kadib ma banaayin yahay mar kale fursad looga dhex shaqeyn karo waddanka ma taala capability mo leedahay waxaan inaad baratid adiga su'aale qof waxaa tahay xanuunsan disc problem qabo laga haayo laf dhabarta waxaa dhahday aniga waxaa aadayaa neurosurgery ama waxaa dhahday orthopedic aadayaa maba awoodid ba macnaha waqti dheer ma taagnaan kartid waqti dheer markaad taagnayd dhabarka xanuunaya kursi yartaa suuragal ma aha awoodda inaad ka fikirtid waayo awooddaas waa awood jismi adiga horta ma kari kartaa waxaan takhasusaatka qaar waxaa laga yaabaa inay traumadooda badan tahay oo shifti badan leeyihiin oo habeenkii loo dhafro habeenkii ma ka bixi kartaa shaqadan takhasusaatka qaar dhaqaale ahaan ma awoodaa lacag ahaan takhasusaatka qaar yani fursad ma helin scholarship ma helin ma iska bixi kartaa dibadda inaad ma awoodi kartaa marka capability dhowr dhinac waaye dhaqaale ahaan ma awoodaa nafsad ahaan ma awoodaa ma ka bixi kartaa yani noloshaada inta ka dhiman ma awoodi kartaa inaad ku shaqaysid marka mar walbo qof walbo idin ka mid ah oo ku fikiraya inuu takhasus qaato isweydii takhasuskan ma jeceshahay fursad ma ka bannaan tahay fursad shaqo iyo fursad tababar ma ka bannaan tahay adiga awood ahaan ma awoodaa saddexdaas waa asaasi keliya ma ahan postgraduate-ka xitaa undergrad-ka ardayda markay midis ee ka imaadaan dugsi sare oo kula taliyaan ardayga markuu dugsi sare soo dhameeyo jaamacad ma dooran rabtaa saddexdan isweydii arday oo waa ogahay oo badan oo dugsi sare ka baxaynaa joogaan oo hadda ka bixi rabaan fanfoorana la joogaan saa daraaddeeda maadaama jaamacad bilaabi rabtid isweydii
computer science haddii aad barrabtid ma jeceshahay fursad ma ka jirtaa ma awoodaa wax walba barrabtidna ku salay waa isla fahanay soo maaha kulli waa isla fahanay maaha okay takhasuskii doorashadiisii waxaa muhiim u ah body language inaad fahamtid body language waxaa la yidhaahdaa waa waxa qof walba oo maarkin oo dhakhtar rabo inuu noqdo ma kusii jirto dhakhtar waa serving iyo u shaqeeyaa dad qofka dadka u shaqeynayna body language-ka inuu aad u fahamsan yahay sidee qofka uu hor istaagay sidee ula hadlay sidee ugu jawaabay wejigaaga see ka dhigay goormee la dhoola caddeeya goormee la murugooda goormee la xanaaqa goormee la fariistaa goormee la istaagaa goormee markiinoo you know what I'm saying qofku waa isla fahmayna soo maaha body language iyo dhakhtarnimo kalama maarmaan dhakhtar ma tahay haa body language iska sax hadduu kaa qaldan yahay buwaag badan oo laga qoraa jiraan muraajacay youtube-ka ku qor ka waran iyadoo laga hadlaayo saalaan ku siinaa breaking bad news meerta qof ehelkiisa laga dhintaa aa usoo baxdaa u sheegi rabtaa gacmaha haddii aa jaabka inaad gashato oraadi doona waxay ahayd wallaahi xaalad aad u dhib badan ahayd wallaahi what ma soconaysa macnaha ma soconayso qofka see ula hadlee qofka daqiiqadaas oo aan hadda meedka sheegnay inaa hoos fiirisid waaye sympathy muujisid qofka gacanta ka qabatid mandiil ama tissue jabkaaga uu ku jiro waa ogahay xaaladda aad ku sugantihiin ehel ahaan runtii aad baan idin kula xanuunsanaynaa ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu naxariisto that kind ay leedahay maana marka dhakhtarnimadaada body language haddaa ku liidatid takhasusaatka ICU-ga kale ma arkino ha aadin because ICU-ga dhimasho badan aa la report gareeyaa inta badan dad badan waxaa u sheegay xalay 5 dhimatay 5 qof oo laga dhintay ayaa la hor istaagay marka hooyadii cunugeeda dhintay wiilkii hooyadiis dhimatay waa hor istaagi rabtaa marka aadi qodobkan muhiim yahay waa fahanay qaabka takhassus u dooranayno maxaan ka fiirinaynaa body language laga rabana waa isla fahanay okay attitude waa laga maarmaan akhlaaqda inta joogo medicine dhakhtarnimada attitude-ka waxay kuu noqon kartaa diyaaraddii aad ku buubi lahayd oo kaga dhex bixi lahayd saaxiibada kuga hareeraysan oo dhan mar walba oo akhlaaq wanaagsan tahay oo dabci wanaagsan tahay oo dhaqan wanaagsan tahay oo ixtiraam badan tahay dadka waa ka muuqanaya saas daraaddeeda haddii attitude aa qaadatid hawadaas ma arkino aa ku soconaysaa mar walba marka akhlaaqda aaday muhiim u tahay dhakhtarnimada marka la joogo skill waa laga maarmaan dadka qaar waxay yidhaahdaan medicine waa qayb skill ah iyo qayb aanan skill lahayn pediatriga aada ani skill ma jeclay oh no yaa ku dhahday pediatric skills badan uu leeyahay pediatric umbilical catheterization pediatric intubation pediatric مش عارف ايه skills badan ku dhex jiraan canulization nurse ku jooga canul geliwaya adiga dhakhtarka ahaa hada canulka aqoonin ka waran pediatric interosseous pediatric muxuu ahaa venobanger wax badanaa jiro macnaha marka takhasus aanan skill lahayn dermatology haddii aad qayb dhan oo aesthetic medicine la yidhaahdo jiro oo skills u baahan fillers aa sameynay heblo aa sameynay laser aa isticmaalay marka kelmadda shaac baxday ee dhehayso niyahow ani skillska ma ku fiicni waxaa iska aadaya internal medicine no ma jiraan waxaas qayb walba oo medicine-ka ka mid ah skills ayaa leedahay keliya waa lagu kala badan yahay meeshaan marka maxaa usoo qaatay sawirkan waxaa usoo qaatay dhakhtarow ama dhakhtaray waxaa lagaga baahan yahay inaa kiyaaba american noqoto oo meel walba furi karo soomaaliya markaa dhakhtar ka tahayna waa mid ka mid a meelaha ugu challenge-ga badan caalamka ogow dhakhtar keliya ma tihin waxaa noqon doontaa nabadoon waxaa noqon doontaa qabiilisti waxaa noqon doontaa dhakhtar waxaa noqon doontaa siyaasi waxaa noqon doontaa alxal walcaqdi yani maxaa ula jeedaa isbitaalka qofaa imaanaya qofka markuu yimaado lama yaqaan ehelkiisa tusaale ehelkiisa lama yaqaano ama nin tuugaha la keenay ama isbitaalka taagtaaga la geliyay waa lagu dhibaateeyey waa inaa oda dhaqanka taqaanid yaa tahay adiga tii dagaalka maaha soomaaliya joogtaa ugu weyn dhakhtarnimada soomaaliya ee basic u tahay ninkan yuu yahay ninkan ciddaas waaye ciddaas yaa waay nabadoonkooda ninkan haddii ma arkino asaga yac oo naga dhehi weynin nabadoonka hala waa adduunka ma ka jirto ogow anaga taase tan gaaray noo tahay dhakhtarka soomaaliyeed waa dhakhtar duties fara badan hayo oo qaarkood maamul ah qaarkood arrimo bulsho ah qaarkood diin ah qaarkood dowladnimo ah ma fahamsan tahay marka mar walba kiyaaba american noqo waxaa ula jeedaa waxa socda faham adiga sidee wax u socdaan faham waxa ugu yar gudoomiyaha degmada islaamka aad joogtid baro macna at least kiyaabaha isticmaal okay marka qayb walba skill u baahan taasna ma arkano waa laga maarmaan marka dooranayno
dhakhtarnimada dabcan waa challenge mararka qaar korontooyin waxbaa yaallo qaybtan waa boogsiinaynaa takhasusaatka aan si gaar ah maarkino ma raba inaan detailina kasii dhigo waxyaaba muhiimka waxaa ka mid ah afarta waaweyn obstetric gynecology pediatric internal medicine iyo surgery maanta markii aad rabtid inaad noqotid obstetrician ama dhakhtar gynecologist ah ma ahan gynecologist ahay aniga dumarka daaweeya kaliya maaha waxa laga baahan inaad fahmi kartid gender issues waxa laga baahan inaad fahmi kartid physical fitness wax la xiriiro arrimaha family life hooyada boqol mushkilad oo arrimo qoys haysto inaad behind daaweyn kartid waxa laga rabaa inaad fahmi kartid work schedule-ka sharciyada waddanka jiro meeshaan fiiri litigation maxaa waaye sharciyada hooyo haddii kuu timaado cesarean ma la qali karaa iyadoo ninkeeda joogin ama aabbaheed laaintiis ma la qali karaa dabcan sharciyo cusubaa jiraan qofka inay iyada saxiixi karto sharciyada waddanka inaad fahmi kartid surgical skillska waxyaaba lagaga baahan yahay ka mid tahay children hooyada ku imaanayso moral support kaa rabtaa waxay kaa rabtaa cunugeeda kariirkiisa wax kaa weydiinaya waxbarashada cunugeeda wax kaa weydiinaya dhakhtarnimada marka mar walba waxaa la rabaa inay la socoto maakino wax behind ah takhasusaatka hoos tagi karo qofka gynecology uu sii baran karo waxaa ka mid ah assisted reproduction gyneurology gyno-oncology fetal-maternal geriatric gynecology surgeonka marka surgeonka sidaas la mid ah communication skills moral support waxyaaba badanaa laga rabaa dhakhtar qaliin markaad inaad noqotid dhammaan qualitieskan inaad leedahay wax badanna ka og tahay waa laga rabaa waxaa jirto marka saddexdan qaanad keliya takhasus gaar ma ahan dhakhtar walbaa laga rabaa inaad leedahay waxa la yidhaahdo job ama workplace specific skills inaad leedahay technical skills iyo inaad leedahay essential skills maxaa ula jeedaa workplace-ka marka la joogo skills laga maarmaa inaad leedahay jiraan maxaa ka mid ah sidee computer loo isticmaalaa dhakhtar word isticmaali karin ka waran powerpoint computer see loo isticmaalaa hospital management system see loo isticmaalaa simply fundamental of computer ina fahmi kartid labo communication-ka iyo shaqaalaha aad wada shaqaysaan wada xiriirkooda dhaqanka wanaagsan yaa madax ku ah see loo tixgeliyaa yaa kaa hooseeya see loo tixgeliyaa wada shaqaynta wax wada abaabulka waxaas hadday dacwo timaado yaa loo sheegaa xafiiska shaqadii shaqaalaha muxuu qabtaa xafiiska maaliyadda muxuu qabtaa jobka waxa quseeya waay inaad fahamtid macnaha labo technical skills adiga technicalitigaaga personal development iyo soft skills soo galaa essential skills waxaa kamid ah presentation skills inaad leedahay markaad dhakhtar tahay oo insha allah next programmada qaban doono ka mid yahay effective presentation skills and public speaking oo dadku train garanayna muku sii dheeraanayna taas kaligeeda ma arkino waxay tahay are we still here كل ما جوجنا ولسه سعيد سايمات وجوجنا ميا أكل خلاص أوكي surgical fields كسب سبيشاليتي أهم قفة هدو كفكرة إنه التخصص قليل برتو وحكمل وحياها نقولنا أفرن GIT surgery urology hepatobiliary بلاستيك خيبها نقولنا ويجران أونكو surgery نيورو surgery كليه وحايدين سمينا بريفين ما دام التخصص دورشة عن كهل لينو cardiac thoracic vascular trauma surgeon أجرتو marka aragtid inaan dhakhtar qaliin noqotid maxaa muhiim ah lion's heart eagle eyes and lady fingers maxaa laga rabaa wadna aan naxayn gabagabada topican waxyaabo aan ku ogaanayn naxitaankiina ku jiro waa idin sii sheegaya iyo markino waxaa laga rabaa indho meel dheer wax ka arki karo dhiig bax wax walba inaa xil hore arki kartid qaybaha jir waxaa ka mid ah orthopedic trauma ay qaadan kartaa ENT وتخصص آد معاه وضن كانوا كويري هاي ولا برانكرو وحاجروا أوفثالمولوجي تخصصات ككاريزما ده اللي هي كمان هاي دون كان آد لو وجه عليه هاي لغاتيرتي عندها شغلة وانا يفروض هاي سب سبيشاليت سيرجران إيجن أو قفك أو كسي قادن كرو فيترو ريتينال جلوكوما سبيشاليست سينو نقضوا كله وحياها دوري كرتوا حكمة فيزيشن محاوى internal medicine وقيب برود معنا آدي وينتهي وحير معها internal medicine ساس أودي إذا قفكم حال جربا qualities كان ومهم دكتور كربو إنه internal medicine برتو وكو reasoning على جربا قف كان وحده هذي وحقوق بقى ديسلبيديميا إنا أوريزن جريس محاكو كاني هو رواية وصدني شان سنة جرأة وميزان كده وياه 100 كيلو
waxaa dhahday waxa cholesterol laga helay inaa u sharaxdo doctor aniga saliid ma cuni sokor iyo marra iska dhaaf reasoning laga rabaa haddaadan reasoning lahayn you can be internal medicine explanation fiican qofku wuxuu ka qaldan yahay inaa maarkano ka sixi kartid mar walba inaa up to date ahaatid qaybtan surgeonska waxaa laga yaabaa in loo dhaafi karo laakiin internal medicine-ka up to date daawadii oo shalay lagu daaweynayo sokorta mid kale ka dambaysa waa inuu mar walba journalistka soo baxaan internal medicine broad wax badan ay akhriyaan moral values inaa leedahay waa laga rabaa okay internal medicine waa ka soconaynaa mar walbo qeybaha hoos imaan kara waxaa kamid qofka inuu general internal medicine noqdo inuu qaato gastroenterology nephrology neuromedicine hepatology endocrinologist waxyaalahaas oo dhan oo sii baran kara cardiology way badan yihiin respiratory rheumatology hematology hadda taqasuskan oo kale rheumatology waa ku istaagayaa rheumatologist Soomaali ma joogaa rheumatologist ma joogo field naga maqan waaye oo dhammaan waxyaalaha immunological diseases la xiriiro joint problems ka kulli dadka daaweeyo waaye ma haysano macnaha qofkii marka rabo inuu internal medicine subspecialty aadaha ka fikiro hematologist nafsidiisa aad ugu yeeray pediatrics qaybaha hoos imaan karaan inuu qofka general pediatrician noqdo neonatologist inuu noqdo pediatric hematology pediatric neurology pediatric gastroenterology maanta anaga ma rabno generalist ma rabno ogaada dhalinyaro anaga generalist ma rabno waxaan rabnaa sub specialist waddanka konferensyada dhacayaan waxaa laga hadlooyaa sub specialty hadda conference ugu dambeeya international Somali Medical Council ama congresska waxaa laga hadlayaa sub specialty waa macnaha waxyaabo daqiiq ah laga hadlayaa macnaha marka waddanka sidii ma aha haddii aad fikiraysid inaad takhasus qaadataa ka fikiraysid ha ka fikirin general surgery no general internal medicine no wax gaar ah ka fikir taasaa sumcad iyo kariirkaaga kor u qaadayso okay waxaa jiro marka waxyaabo la yiraahdo medical allied fields kan waxyaabo naga maqan waayo waxaa jiro onco muxuu ahaa physician waxaa jiro team ka shaqeeya hospital management waxaa jiro waxa la yiraahdo health economics waxaa jiro health system management waxyaabahaas oo dhan allied medical fields ka la yiraahdo infusionist jiro waxa la yiraahdo waxaa jiro phlebotomist waxa la yiraahdo IV ga bas ay toogtaan aad ugu fiican yihiin waxyaabahaas waxa waaye waxyaabaha loo baahan yahay oo markan medical allied ka waxaa kaloo kamid ah transfusion medicine dad gaar ah ku taqasusaan anaga Soomaaliya dhiiga la raadinaa weli social media laga raadinaa xubno casmo transfusion dad ku taqasusay jiraan oo blood banking iyo waxaas ka shaqeynaya physical medicine radiology and imaging technicians waa loo baahan yahay medical oncology surgical oncologist surgery qayb ka tahay ICU okay biochemistry clinical pharmacology oo kasi soconayna paraclinical ka kamid paraclinical waxa kamid pathology field oo underestimation aan ku sameeyno waa laakiin aad loogu baahan yahay wadanka maadaama modern aan sii noqonayno oncology ama cancer way bataan haddii pathologist aqoon fiican leh aan la helin diagnosis fiican ma la gaari karo okay marka fieldiyada oo ay dadkeena ama dhalinyaradeena aysan u malaynin inuu wax fiican yahay ama muhiim yahay kamid tahay pathologist caalamka adduunka la soo joogo maaragtay slide loo sawiraya oo ka akhrinaya macnaha waxaa waxay kamid tahay charismatically fiican lacag fiican lagu helo histopathology cytopathologist jiro interventional pathologist jiro interventional pathology intervention markuu lagu dhaho waxyaabo uu isticmaalaya ultrasound guided endoscopy guided waxyaabo noocaas isticmaalaya paraclinical weli immunologist kamid ah waxaa kamid ah genetics waxaa kamid ah pharmacology waxaa kamid ah experimental pharmacology dadka waxa waaye doolig wax ku tijaabiya badana research centers ka shaqeeya okay paraclinical ka kamid tahay anatomy embryology comparative anatomy experimental anatomy dadka anatomy-ga markino ku sameeyo waa research macnaha inay qof qabtaan wax ku tijaabiyo ama xayawaan qabtaan wax ku tijaabiyo anatomist mar walba loo baahan yahay ani maadada jeclaha waa hadii takhasus aan leedahay inaan ka sameeyaan jeclahay inay tahay maadada banaan waa wadankana ma ka jirto runtii physiology kamid ah applied space physiology sports physiology jiro waxaa jiro wax la yiraahdo diving physiology oo badda hoosteeda dadka quuso markino ay la xiriirtaa battle physiology meelaha dagaalada ka dhacay wax la mid ah qaraxyada iyo waxaas ay ka hadlaan okay qaybtan waa gudbeena nutrition okay
attitude طبعا واسكو شيغني اوكي بار قف هردو ما جرب بس تمام قيبي ugu dambeeyay barnaamijkan ku dhownahay waxa jira marka waxa la yiraahdo medical drawbacks inta cabsi waa wax xirso waa sheekeynay qaabka u dooranayno sidee dhakhtar u noqonaa sidee u guuleysanaa laakiin waxa jiro dhaqaatiirta qaladaad ka dhacaan waxaanu badan inta badan medicine loo badan yahay qaladaadkaas dhacaan bulshada dhaleecayn xoogan ee nooga keenaan medical legalina ina xabsi ku aadna laga yaabo okay waxa la yiraahdaa marka medicine yes charismatic way macaan tahay dhakhtar aan noqotay laakiin these drawbacks can happen especially dadka qaliinka barto okay meesha waxa ka muuqdo qofkaas maqasal loo soo dhaxtagay qofkan faashada loo soo dhaxtagay qofkaas sidoo kale faashad kan maqas kaas mosquito ama arkino clam waxyaabo waxay ka mid tahay aad u xanuunka badan oo surgery-ga waxa laga yaabaa isla markii dhahayd adiga dhakhtarkan maxaa ka qaldan asiga bini aadam soo maqas soo dhaxtagay laakiin stress ka lagu shaqeynayo shiftiga traumada dhaawacyada lagu keenayo bini aadamkan waa exhausted waa mudaaleen nurse la shaqeynayo waxa laga yaabaa inaysan qalabka si sax u tirin sabab way badan yihiin laakiin ugu dhaqaatiirtii drawbacks ka dhici karaan ogaada waxyaabahan oo kale sumcadaada muxuu ahaa 180 degree pop dhulka ku dhacay macnaha xabsi aadi waxa laga yaabaa medical legal issue xun inuu noqdo inaa maskaxda ku haysaan waaye legally sidee looga gudbaa sidee looga hortagaa sidee la isaga ilaaliyaa qolka nurse markaa joogto responsibility haysto WHO checklist waxa la yiraahdo waxyaabaha oo muhiimka ah inaa og tahay ayay ka mid tahay waa same scenarios waaye dad looga soo tagay qalab iyo faashada medicine dad badan waxay u maleeyaan badana iftiinka waa la jecel yahay moogta ee meelaha badaha dadaa u maleeyo raaxo kiisaska qaar la kulmaysid ee mas'uulka ka tahay ee xafiiskaaga kugu soo booqanayo waxa aad u xanuun badan waaye badankoodna lacag ma haystaan adigana laga yaabo inaa maskax kale kusoo gasho meesha naxariis waa number 1 ilaahay ka cabsi waa number 2 qofkan inuu yahay walaalka walaasha waalidka qaabka u daaweyn lahayd oo kale ama cunugaaga inaa uga fikirtid oo laga maarmaan marka medicine sida u maleynayno way ka duwan tahay waa meel ilaahay loogu dhawaan karo haddii kale intana maarkino aakhirada qaybteeda xun lagu shaqaysan karo hadda ugu dambeyntii meeshaan jidadkan waa complicated macna dhib badan laakiin dad yar medicine guule ku gaaro jidka saxda ah helama in badan qofkii isticmaalataan Google Map hadda wadanka aqoonin waa dhumay aad u dhumay laakiin medicine qofkii goal rasmi ah leh og wuxuu u yimid og meesha u socdo hadafadiisa mucad yihiin jidka saxda helayo Google Map kana meesha fiican ka qabsanaa marka laba way ina shumac shidan oo iftiinkiisa la doogsado noqotid ama ma ahanay mugdi ina noqotid oo medicine dhankeeda lagu talagelin labadaas way kee dooranayna kee dooranayna waa dhantay marka la nasta marka intaas ay noogu eg tahay green kan indhaha ku haya insha Allah aad u mahadsantiin kasoo dhawow abubashiir hosbitaal hormuudka cisbitaalada ee dalkeenna waxa uu qalbaysan yahay si heer sare ah waxaad ka helaysaa dhammaan waaxaha kala duwan ee daboola baahiyahaaga caafimaad sida qaybta bukaan socodka oo ay diyaar kugu yihiin dhakhaatiir khubaro ah waxaad ka helaysaa waaxda qalimada guud iyo qalimada casriga ah ee leysarka qaybta haweenka qaybta afka iyo ilkaha raajo iyo farmasho casri ah uga soo hagaag xarunta weyn ee cisbitaalka suuqbaxaad ka soo horjeedka dahabshiil